waqti ma haysano fadlan cid kasta dagaalka ha ka qayb qaadato hana taageerta ciidamada militariga ayaa lagu yiri war saxaafadeed maanta ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya saaxiibayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dagaalada Itoobiya ka socda oo meeshii ugu adkayd maraya qodobada kale ee barnaamijka idinku soo gudbin doonana waxaa qayb ka noqonaya Abiy Ahmed oo shacabka u diray qayladhaantii ugu dambeysay waxaana uu ku baaqay cid kasta oo hub haysatay inay isdifaacdo qodobada kalena waxaa kamid ah generaalka ugu sareeyay ciidamada Tigreega ah ee TPLF oo wacad ku maray in dagaalka ay sii laba jibaari doonaan hogaamiyaha TPLF oo fariin soo diray hadaba fariintiisu maxay tahay barnaamijka ayaad ku daawan doontaan qodobada kalena waxaa kamid ah awoodda military ee TPLF oo qabsatay magaalooyin hor leh isbuucan waxaan soo gudbin doonaa dhammaan magaalooyinka ay Tigreegu qabsadeen oo xilligani ciidamadii ugu badnaa ay keeneen qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkan oo mid aad iyo aad u xasaasi ah balse marka koowaad fadlan muuqaalka like saar siina share garay adiga oo saaxiibadaada la wadaagaya hadalka qayladhaanta ah ee ka soo yeeray xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed shacabkana loogu baaqay inay hubkooda qaataan iyo Tigray oo iyaguna jawaab culus soo saaray sidee bay kula muuqataa xaaladda Itoobiya gobolka xilligan lagu muransan yahay ee dhinaca Itoobiya ay dawladda awoodda badan saartay oo isaguna xaalka sii adkeeyay markii Tigraygu xajisteen gobolkooda awoodoodiina ay ku qabsadeen magaalooyin kale oo dhinaca Amxaaradu leedahay aan ku bilaabo waa 1 bisha 11aad November 2021 waqti ma haysano ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyadoo oo lagu baaqay in dagaalka ay ka qayb qaadataan dhammaan dadka shacabka ah iyo sidoo kale ciidamada militariga ah waxaana sidoo kale warkan oo dabcan uu warbaahinta la wadaagay ku xigeenka ra'iisul wasaaraha Itoobiya ahna wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya uu yiri cid kasta waa inay taageertaa dawladda ciidamada militariga waa inaad garab siisaan iyadoo oo colaadda Itoobiya ka taagan ay meeshii ugu adkayd marayso dhinaca kale Abiy Ahmed ayaa shacabka qayladhaantii ugu dambeysay u diray waxaana uu ku baaqay inay isdifaacaan cid kasta oo heli karta hubka ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa taageerayaashiisa ku booriyay inay adeegsadaan hub kasta oo ay haystaan si ay u joojiyaan horu socodka ay wadaan dagaalamayaasha kooxda Tigreega ah ee TPLF fallaagada Tigray waxay doonayaan inay burburiyaan dalkeena waxaana waajib ah in qof kasta oo hub haysta uu ka hortago ayuu yiri ra'iisul wasaare Abiy Ahmed wuxuu ku baaqay war qoraal ah oo ku soo qoray barta uu Facebook ku leeyahay in jabhadu ay sheegtay inay guulo waaweyn ka gaartay dagaalka ay ka wado dhinaca gobolka Amxaarada taasina uu yiri waa wax aan la aqbali karin Abiy Ahmed ayaa sheegay inay waajib ku tahay muwaadiniinta sida uu markaa hadalka u dhigay inay xanibaan baabi'iyaan oo aysan wax isxaana u falin jabhada TPLF ee ugu yeeray inay yihiin kuwa ka soo horjeeda qarannimada Itoobiya waxaana uu intaas sii raaciyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed inay caan ku yihiin laynta dadka iyo sidoo kale xasuuqa dadka kala duwan iyagoo aan qowmiyadda u fiirinayn qoraalka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu u dhignaa sida tan mustaqbalka cadowgu wuxuu aruurin doonaa ciidamadiisa hadhay wuxuuna qaadi doonaa weeraro kale ayuu yiri ra'iisul wasaare Abiy Ahmed wuxuuna sidoo kale ka digay in dagaalkan uu noqdo mid shacabku isdhigtaan wuxuuna sidoo kale yiri inaga oo og in isha dhibkeeda halka ay tahay taas oo ah inaan difaacano dhulkeena waxa loo baahan yahay in dhammaan shacabku ay muujiyaan feejignaan dheeri ah dhinaca kale Mareykanka ayaa ku baaqay in mucaaradka Tigray ay ka baxaan gobolka Amxaarada iyo sidoo kale kan Canfarta oo ay ku sugan yihiin waqooyiga Itoobiya dab aad u holcaya ayaa ka taagan qoraal laga soo saaray waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa looga dalbaday TPLF inay hakiyaan ku sii siqitaanka magaalooyinka Disay iyo sidoo kale Kombolcha TPLF ayaa hore u sheegtay inay magaalooyinkaasi la wareegtay inkastoo dawladdu beenisay ciidamada Tigreega ah ee dagaalka kula jira dawladda Itoobiya ayaa sheegay inay qabsadeen magaaladan oo ah magaalo istiraatiiji ah isla markaana xilligan wixii ka dambeeya ay sii xoojin doonaan dagaalka afayeen u hadlay qowmiyadda Tigreega ayaa waxa uu yiri xilligani waa xilligii dhammaan qof kasta oo Tigray ah uu aarsan lahaa Disay waxay Addis Ababa u jirtaa wax ka yar 400 oo kiiloomitir waxayna Tigreegu xilligan ku soo wajahan yihiin caasimadda Itoobiya siyaasiyiinta ayaa dhamaantood waxa ay xilligan eedayn culus u jeedinayaan dawladda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyaga oo ku eedeynaya wax kasta oo ay Tigray sameeyaan inuu isagu ka dambeeyay
qorshe kasta oo ay dowladdu lahayd ayaana u muuqday xilligan mid aan sidii la rabay u dhicin. qaar badan oo ka mid ah qorshayaasha ayaana fashil u muuqda kuwo kusoo dhammaaday. dhinaca kale generaalka hogaaminaya ciidanka Tigreega ah ee TPLF ayaa fariin soo diray. talo fariintiisu sidee bay ahayd? generaalka hogaaminaya dagaalyahanada Tigray ninka lagu magacaabo Tasadkan Gebretesansi ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin wax wada hadal ah oo ay la yeelanayaan dowladda. wuxuu sheegay in dagaalka uu haatan marayo meel gabagabo ah. dhinaca kale xafiiska warfaafinta dowladda Itoobiya wuxuu ku eedeeyay ciidamada Tigray in tiro dad ah ay ku dileen magaalada Kombolja. ma jirto ilaa waa dabcan ilo madax bannaan oo xaqiijinaya hadalkaas, iyada oo xilligan qaylo dhaantu ay meel adag marayso. xogayaha dibadeedka Mareykanka Antonio Blinken oo arintani ka hadlay wuxuu dhinaciisa sheegay in dagaalka Itoobiya ka socda ee ay qaadayaan Tigraygu uusan ahayn mid Itoobiya guulo gaarsiinaya. wuxuuna hadalkiisa u qornaa sida tan: dagaalka sii socda wuxuu uga sii darayaa xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta waqooyiga Itoobiya. xogayaha dibadeedka wadanka Mareykanka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter sidoo kale ku sheegay in xilligani dowladda iyo Tigray intaba loo baahan yahay inay sameeyaan tanaasul si dagaalkan oo dhibaato badan sii geysanaya looga baaqsado. shalay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa taageerayaashiisa ku booriyay inay adeegsadaan hub kasta oo ay haystaan si ay u joojiyaan awoodda si laba jibaarmaysa ay Tigraygu xilligan la yimaadeen. haddaba saaxiibayaal waxaan eegi doonaa awoodda military ee TPLF, magaalooyin hor leh oo ay qabsadeen ilaa iyo hadda imise magaalo ayay gacanta ku hayaan. dagaalka xilligan sii soconaya ee Tigrayga ayaa waxa uu gaaray heer ay Tigraygu qabsadaan magaalooyin waaweyn. awoodda military ee TPLF haddaba intay ayay gaarsiisan tahay? waxaa la qiyaasayaa in celcelis ahaan TPLF ay haysan karaan ilaa iyo 200,000 oo ciidan marka la isku daro militariga, booliiska, maleeshiyada hubeysan ee deegaanka. waxay ka kooban tahay awood military, ciidankii militariga ee dowladdu lahayd iyo sidoo kale dad shacab ah oo isbahaystay, waxaana taasi ay keentay in dagaalku aad u sii xoogeysto. 20,000 oo qof ayaa ah askarta sida gaarka u tababaran, waxaana intooda badan ay yihiin kuwa dagaalka xoojinaya. 100,000 oo booliis ah iyo maleeshiyo hubeysan ayaa sidoo kale dagaalkan isku biirsaday. haddaba muxuu yahay hubka ay haystaan Tigraygu? maadaama ay ciidamada Tigray awood u yeesheen in ay guula ka gaaraan dagaalka, gantaalana ku garaaceen magaalooyin iyo sidoo kale garoomo diyaaradeed oo ku yaala gudaha Itoobiya ee dabcan haddaba hubkaas xagee bay ka keeneen? Itoobiya iyo dalka dariska la ah ee Eritrea ayay ku garaaceen hub awoodiisu aad u badan tahay, taas oo la sheegay inay ahaayeen gantaalo. khabiiro military ayaa waxa ay sheegeen generaalada ugu sarreeya ee ciidamada Tigraygu inay galaangal weyn ka sameysteen intii ay joogeen ciidanka. wuxuuna sidoo kale ay sheegayaan generaaladan khabiirka military ah markii ciidamada militariga ay Itoobiya Tigraygu awoodooda ku maamulayeen ay la wareegeen hub kasta oo ay dowladdu lahayd, sidoo kalena askarta ugu badan ay Tigray yihiin. haddaba maxaa keenay in awood loo adeegsado? awood Abiy Ahmed uu adeegsaday ciidankaansi intee bay gaaraysaa? dowladda dhexe ayaa ku eedeysay xisbiga TPLF ee ka taliya gobolka Tigray in uu wado tallaabooyin ka dhan ah ciidamada militariga ee fariisimaha ku leh gobolkaas. khudbad uu telefishinka ka jeediyay Abiy Ahmed wuxuu ku sheegay in lagu guuleystay howlgalka military ee lagu qaaday gobolka Tigray, isla markaana uu sii socon doono howlgalkaasi. wuxuu sidoo kale soo saaray ra'iisul wasaare Abiy Ahmed in xilligan wixii ka dambeeya khad cas laga bilaabo gobolka Tigray, sidoo kalena meel kasta oo TPLF ay ku sugan tahay la soo gabagabeeyo. hadda xilligani xaaladda Itoobiya ka taagan waxay maraysaa mid ka mid ah meelihii ugu adkaa. xaalka Itoobiya ayaana ah baraka malehey, maadaama ciidamada ay sameysanayaan isbahaysi, dowladdu ay taageero weydiisanayso shacabka, Tigrayguna ay qabsanayaan magaalooyin hor leh. saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamij wareedkeena qaybtaan oo ay qaybtii koobaad ayaan idin leeyahay intaan qaybteeda kale oo warar xasaasi ah idinkugu soo gudbin doono aan ku kulmi doono. waxaan idin leenahay nabadgelyo. qodobada kale ee barnaamijka hore ku daawan doontaan ama kan soo socdaan idinkugu soo gudbin doonana waxay u badnaan doonaan hub aruursiga socda, meelaha dagaalku uu marayo, Tigrayga dhulka ay ilaa iyo hadda qabsadeen, eedeymaha dhinaca dowladda ka soo jeedo waa dabcan ka yimid
qodobadaas oo dhan ayaan si gooni ugu eegi doonaa saaxiibayaal barnaamijkan kiis karanta ku kulmi doonaan waxaan idin leeyahay nabadgelyo